shirweynahan oo ahaa shir cilmiyeedka caafimaadka iyo daaweynta ayaa waxaa soo qaban qaabisay jaamacadda Soomaaliya. Shirkan ayaa waxaa lagu soo bandhigay cilmi baarisyo lagu sameeyay cilmiga caafimaadka iyo daaweynta. Ciwaanada cilmi baarista lagu sameeyay ayaa waxaa ka mid ahaa cudurrada TB-da, HIV, malaria, kansarka iyo cudurrada uurku jirta. Shir cilmiyeedkan ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, khubarada soo bandhigaysa cilmi baarista, ardayda iyo maamulka jaamacadda Soomaaliya. Very good clinical mind, so that statistically waxaan markaa awood u lahaa inaan investigation ku sameyno anagoo laboratories. Use our hands, use our experience, and then clinical diagnosis is very good, but pathological diagnosis. MDR TB waxa weeyaan TB-da jeermiga ama bakteeriyada TB-da oo adkaysi u yeelatay daawooyinka labada daawo ama ka badan ee ugu muhiimsan la dagaalanka. Senator Naciimo oo ka mid ah senatarada aqalka sare oo ka hadashay shir cilmiyeedka ayaa u mahad celisay maamulka jaamacadda Soomaaliya. Shaqadeedu waxay tahay shuruucdii wadankan oo u oomayo u baahan yahay saan uga shaqeyn lahayn. Waxaan ku darsan lahay anigoo jaaniskan ka faa'iideysanaya inaan jaamacadda ka codsano in haddii maaragtay ay noo keeni karaan concept papers oo shuruuciyaha caafimaadka ku saabsan ama cilmiyada kale ku saabsan oo u baahan in laga shaqeeyo wadanka u baahan yahay si annagana aan baarlamaankii annaga joognay aan kaga shaqeyno oo sharci wadanka uu leeyahay oo maaragtay jiro ama waligiis jiri doono oo u noqdo aan u soo saarno annagana. gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda ee dhinaca cilmi baarista Dr. Axmed Khadar Cabdi Jaamac ayaa ka warbixiyay muhiimadda uu leeyahay shirkan, asagoo sheegay inuu shirkan yahay shirkii saddexaad ee jaamacadda Soomaaliya ay qabatay. Konferensigan waa kii saddexaad ee jaamacadda Soomaaliya ee soo qabanqaabiso sanadkan 2018. Laakiin kan waa kii koowaad ee ku saabsan barashada cilmiga caafimaadka iyo daweynta. Bishii Abriil sanadkan aan ku jirno jaamacadda Soomaaliya waxay qabatay konferensiga ugu horeeyay ee ku saabsanaa on engineering and computing kaasoo la qabtay bishii Abriil 15keed. Konferensigaas waxaa looga hadlay current issues in engineering and computing, arrimaha ama cilmi baaristii ugu dambeysay ee ku saabsan engineeringka iyo waxa la xiriira computing oo dhan. Haddaba waxaan jeclahay in ay la wadaago waxyaalihii lagu soo bandhigay maadaama uu kulankaas ama bandhig cilmiyeedkaas ay ka soo qayb galeen cilmi baarayaal badan. Gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya Dr. Ismaaciil Cali Siyaad oo ka hadlay shir cilmiyeedka ayaa sheegay in jaamacadka ahaan ay sii wadi doonaan cilmi baarisyada noocan oo kale. waxaan maanta halkan isugu nimid kulankay ama bandhigga cilmiyeedkii saddexaad oo jaamacadda Soomaaliya ay qabatay sanadkan 2018. waxay caddeyn u tahay dadaalka ay jaamacaddu ugu jirto inay noqoto mid ku qotonto cilmi baaris iyo adeegsiga technology. bandhig cilmiyeedkan waa fagaaro ay ku kulmaan cilmi baarayaasha, takhaatiirta iyo aqoon-yahanada kale iyo cid alla intii danaynaysa arrimaha la xiriira caafimaadka iyo kor u qaadista adeegga caafimaadka ee dalka. waxyaabaha laga qoro dalkeena inta badan waxaa laga soo xigtaa dad ajnabi ah oo si dhab ah aan xoogaal ugu ahayn dalkan ama ka leh dana siyaasadeed. si taas looga maarmo ama loo dheelitiro waa in la helaa cilmi baarayaal iyo aqoon-yahano Soomaali ah oo si cilmiyeysan uga warbixin kara wadanka Soomaaliya. gudoomiyaha golaha sare ee jaamacadda Soomaaliya Professor Maxamed Axmed Macallin oo soo xiray shir cilmiyeedka ayaa fariin u diray jaamacadaha kale ee wadanka ku yaalo inay sameeyaan cilmi baarisyo si uu wadanka u hormaro. waxaan u mahad celinayaa dhaqaatiirtii ka soo qayb qaatay cilmi baarista oo ummadda Soomaaliyeed u soo bandhigay wixii la soo arkay iyo natiijadu waxay tahay iyo step forward meesha laga sii aadi lahaa meesha maanta aan taaganahay. waxaan u malaynayaa inay sharaf iyo karaamo noo tahay in la ku ogaado inaan dadka Soomaaliyeed hawl hayno hawshaasna ay noqon doonto in wax tarta dalka.
jaamacadda Soomaaliya oo ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn ee ku yaala dalka ayaa sanadihii u dambeeyay dadaalo dheeraad ah ku bixinayso sidii loo sameyn lahaa cilmi baarisyo ku salaysan xaqiiqda. Cabdullaahi Maxamed, warbaahinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, magaalada Muqdisho.